soo dhawaada xubintii kalamaan dalka madaniyo humaaga tarinaya hawsha waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysaa ila meeraysadii way soo dhammaanaysaa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeenani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aali ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay low waranagu horanu goonee aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay waryaada kalamaanay fashilka siyaasaddaad maalin kasta ku mashquushiini fashiladu waa badan yihiin dhaqaale xumi ma jirto axmedow majaabkaa ku xanuunay fad ama anfado yaa dhiiday war aqoonsigii Somaliland miyaa lagu fashilmay war wadooyinkii la furay miyaa haddana la xidhay war diidin iyoona ma diidnaba guddiga doorashadu wal magacaabay shaqadiyoona wadadaayaan sidaan ay muuqatona inoo la kanagada uma ka aalaw war idinku waan diidnay iyo waan dooranay ayuun baa ku jiraysaan miya war ayaantan qaylada Kenya ka daba yeeraysa maxaa lagu soo beegay xilligan aryaadaha qayladii yeertaba dadaa qayrugu jiraa xaa'idun ku dhacay abdullaah qaylooda dadka qaarkan ka jiro kamid ahta wareedhahay markii geel loo heeso goroyo uu heesi jirteen warka naga dhageysta fanku barigii hore farsamooyin iyo dhaqan fiican iyo faham buu lahaa fashil dhacay dabeed fanka maanta jira ilma fiiqan iyo food dheere iyo organ iyo falaash ayaa kaaga filan waryaada ma u sheegteen yartu way shidantahe ma u sheegteen waroodayaashan haysaa waa ka dhaxsi yihiin tii ugu shidneed waxay tahay yarta ma lagu haaya yaray ma lagu haaya jaceylka ma ku haaya wali singare walaagas aytambo heeseelanka weeli akwaano aryaa wixii qof ka xishooda qofaa ku xarragooda miyaadan maqal abbaayo kunkaan shilin liindhanaan 500 kabsar caleen caawa cajiinka anaa kaa qasa war ma jeegheeradiba maanta reena soo galay uunsama ii shidido waa ku uunsan lahaa amal war wax la yidhi dunidu waa caynbacayn waxaad ceebta u taqaan dad bay camalkooda tahay war aan way dheegi jiray adduunyo lanshiihane leh waa runtee shiina adduunyada iska leh war adduunyada allah iska leh hena dhegayso ummadiba far bay leedihiyo fan iyo taariikhe facba dhaxalka wuxuu uga tagaa waa filkaa kacaye laagaha fatahay iyo xumahan ina ku faafaya haddaan la iska faafreebin waad ku fasaqmayna warya kalamaanay hees hore way bahaaye nagankii suubanayay suuli dadawmay sababe wabaahili hida maraashe allow saal amuura siday noqon adaa oge aan maqli jiray war waxaa la yidhi shuushkiiyo colaadaha dhaconna lagu shaasheeyey haddii shacabkii walaalaha ahaa sheed ku kala oodmay reer kastaana maamul aan shaqayn gaar isaga sheegtay sharcigii haddaan dhinac marnoo teennu nala shiiday ciddii noo shan togi waa inaan kula shaqaynaa war yuusuf cali samatar miyaa tiriyey waryuu caligabi ma yaqaanay abwaanka ugafin war muxuu ugu dari waayey 5 Soomaaliyeed oo calan ka sheekaysa shil ma la arki waa su'aal sharad ka yaalaaye wuxuu kaloo yidhi cabdiidan shalmadi fooro raacdaya waxbaan sheedda ka arkaaye halka shabaxda lala maagan yahay sheeg haddaad garato hay sheegan inan yahay shiddadiyo jacaylkana intashaar u geliyaan shalambuud la tegiyo shibdhooran shar iyo khayr madeeyo waxaad ka tagtay maxaad sheekadeeni nacas
inta sharisay dumarkii ugu sheegtay shalay galaab shiinlaytaanin wal oosiyaaba waylaarey maansada shiinlayu sheeko furungo waana shakar ew shindhalad ii shay godoob eh she'ni i wareer yeyu shuusha arlaada koy shaki abuurmey wal shal oodami qalbi shal gohiina shameerko in seeno shishoora karoonya shaqaala beergalina shuuka manfalaasoo shaanka hasile shambalkii gurbaantana shiikana karoonyin hoolli shaltumooba shiladhee ogaaw sheebti ii dhidhaabo shiniidii kabuuti shaloolinkii garbooda shilinkii kadhiijari ii shirkahaniin dareer lan walniinku sheegolfade shargudban shaydaan xijaaban warabwaatarash gabagiisa waxaan u fahmay haddaan shalay shuraakiya ahayn laba isjecel shaxdii aan wada degniya kalgacalkii meel ku sheeg war abwaan cabdiyare wuxuu horay u yidhi waxaa gabayga sharaxiisa dilay shaacir loo bixiye sharafta iyo karaamada murtida lumiyey shiiqoowe nin shaxaad ku dooniyo dulmiga ruuxku shaac baxaye shib sidaan u ahay maalintii ay shindhalad gaarto murti shiiyeen suugaan sharaxan erayo shaandhaysan durba shacabku meel uu jeclaa waan shuq siin jiray aryadhaha odaygabay ku faanaya haddaan maqlo waxaa igu soo dhaca mid dhihi jiray dhayal hadalku igama tagee dhugma kaga siiyeen mid dhihi jiray war shiinlaydiin anigu waxaan u gartay ma shaqadii maantaoo kale shaamow ka dhacday inaad ku xusaysaan war anigu mishaalaydan ku xasuustay digtor shiidaa ka mid ah dadkii shaamow ku dhintay wuxuuna ahaa sheebaaristii ugu sarreeyey Soomaaliya war qaraxii hotel shaamow 11 sano ka hor maanta oo kale 3 December 2009 oo ay khamiis tahay maanta oo kale ayuu dhacay markii masiibo hele Yurub ka yimid uu xafladda ku foganayayna Dr. Dufla hadlaayay war abwaan faarax shawlo dadka Yurub iyo Mareykan ka imaanaya Soomaaliya isku qarxinaya la yaabay wuxuu yiri jahaad ruuxan naga doonaya Yurub ka soo duulay dan uu leeyahay ma asaga gaal u dila waayay aryadaha qarax shaamow qaraxyadii ugu horeeyay ee yaabka lahaayuu ka mid ahay qaraxyadii lagu ogaaday inaan cidna la dhaafayna number 1 ka ahay qaraxyadii lagu ogaaday inaan Soomaaliya cid wax garata amba aqoon laga rabina haddana 1 ka ahay hadda qaraxaas waxa lagu waayay dhaqaatiirtii jaamacadda banaadir ka qalin jabihaysay iyo barofesoradii macallimiinta u ahay oo wax barayay iyo wasiiradii arrimaha bulshada u qaabilsanay dawladda xilligaas jirtay hadda dhabankiyo gacmuhu miisku keendageenaa ka dhacday war nin bugti iyo balaayadii dhacday ilaahay ka badbaadshay oo berigaa gabiye wuxuu yidhi tugta qaraxii dhacay iyo shubkii jawrarada gaaray jeenigii faniiniya dadkii loo jarjaray haadda noolaba jahaadkaas ma arag dunida jooga war qaraxaas waxaa lagu waayey wasiirkii hiddaha iyo tacliinta sare Sheekh Ibraahim Xasan Cadow quraan ruugi ina cadow qoorta laga gooye aadaan uga xuma wasiirkii waxbarashada waayeel wasiirkii caafimaadka qamar iyo wasiirkii dhalinyarada iyo isboortiga Salmaan Colaad Roble qaraxii shaamow ku dhii hooban dhega waliba xasuusaday abwaan abdi shire iyo onay kooxdii gayladhaan markii oo araayeen qayladhaan waa wareey qarahii la beegsaday ardadii qalan jibinaysay armadeeyo waxaad ka tagtay qurac jabay sidiisii qarankii mawliicay war heeskaas wuxuu ku dhammaanayay wax ka qabo ilaahow qoomkan sidan yeelay war qaraxa shaamow aad sheegaysiin miyaadan iskii soo buku iloobin war qaraxii shaamow wuxuu ahaa weerar aqoonta lagu qaaday diixigaya aqoonta lagu weerarayna wuxuu ahaa hargaha iyo saamaha kii ardada lagu laayay war qaraxii saddexaad ee aqoonta lagu weeraray sanad ka hor kii ka dhacay buu ahaa egaskantarool ee ardayda jaamacadda u socota lagu xasuuqay war waad qaldantihiin qarax kastoo dhaca aqoon-yahanaa ku dhintay iyo arday iyo waalidiin war professor shiid hadduu qaraxii shaamow ku dhintay wiil uu dhalay oo dhakhtar ah haddana wuxuu ku dhintay qaraxii naasa hablood war wax hore maxaad ka sheegaysaan miyaydaan ogeyn aqoon-yahanadii toddobaad ka hor lagu laayay makhaayadii jallaatada aryadaha Soomaali waa lagu soo duulay waxba ha ku daalina waxaan anigu dhihi lahay
qarax yaa qayladhaaniyo qabyaaladana qaribe qarax yaa qayladhaaniyo qabyaaladana qaribe haye war kalamaanay war ma haysiine madaxda farmaajo mar kasta eedaysa waxaa la ogaaday qaar la midii inay ku jiraan cilmi baadhis kalamaan samaysana waxaa ka soo baxay madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha puntland deni meelo badan inay isaga dabeecad yihiin ta ugu weynna waxay noqotay nimay maalin dagaalaan lama sii shaqeeyo maantana waxay maraysaa baarlamaankii puntland 8 xildhibaan oo deni maamulkiisa wax ka sheegtay in xilkii iyo xasaanadii laga xayuubiyey waddadii dhooba daarood la marsiiyeyna laga daba qaadsiiyey markaa waxaan la yaabanahay haddii madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne deni ay isku nacayb iyo isku jacayl yihiin maxay si aayara isugu fahmi waayeen war aaranjaan iyo xoogga waddaniyiintu islama jaan qaadi karaan war ayagoon is arkin ayaa la iskaga warramay waan isdagaaleen maay foolku fool mee fariingaska galeena wartaasi dagaal maahe waa sannifaad war cilmi baaris kaloo dadka wax u fiirfiirsadaa sameeyeen waxaa lagu ogaaday madaxweyne farmaajo cid aan deniyoo kale ahayn inaysan waxba la qaybsan karin war dadka ilmi baarista suubi maya mid midownteen kataben war qoorqoor iyo lafta garayn werigood madaxweyne kama hor imana been ha ka sheeginina yaa cali guudlaawana intaad ku ilaawday war madaxweynaha jubbaland axmed madoobe wuxuu yidhi jubbaland maxay maamul goboleedyada kale ugu duwan tahay oo loo beegsanayaa kadibna xoogga waddaniyiintu waxay soo qoreen intii axmed madoobe uu jiray inta madaxweyneha maamul goboleedyada kale soo martay sidaas ay ugu duwan tahayna way dhaheen wareedhaha idinkoon daalin dal sharci la'aan jiri karaa ma jiro madaxweynaha jamhuuriyadduna waa ilaaliyaha sharciga wuxuu jecel yahay waa sharci wuxuu necab yahana waa sharci darro ma adinkaa diidi kara axmedow aniga waa kaa sigiye xilka wasiir dubbe miyaad raadinaysaa hortaba imadiya walma sheega jarnee lankii wallaka sheegi wallaka jar waryaadhaheen wax ma ogidine wasiirkii arrimaha gudaha jenaraal wasiir mukhtaar beledweynu dika yidhi jarnaal xuud mis arkeen aryaadhaha wasiir jenaraal mukhtaar ma duulay degow ka dhiga mase dhulka u maray xamar hadda maad ka soo kacday ma la yidhi soo daahdeena qaskan laga damiyaha ma la yidhi war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi madaxweynuhu wuxuu ra'iisul wasaaraha ku qasbayaa oo ku cadaadinayaa in jubbaland cadow baa haysta la dhaho markaa waxaan la yaabanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa madax isku aragtiyo isku mabda ahe cadaadiska cabdiraxmaan sheegayaa xagguu yaallaa war wax eedaynta markaad ka badbadiso waxaa dhacday in warkaagu isduqeeyo sababtoo ah cabdiraxmaan hadda ka hor wuxuu noo sheegay ra'iisul wasaaruhu waraaqdii loo keenay inuu akhriyo maantana ra'iisul wasaaraha wuxuu diidan yahay lagu qasbayaa buu noo keenay war cabdiraxmaan cabdishakuur goormuu noqday afayeenka ra'iisul wasaaraha war hal diidani geed ay ku xoqato ma weydo aryaa anunku hal maqaarka diidaysa meelo dulduleelay ka fiirisa ahaan dhahnaa sawaaban jaan diidinayn ma insan durtaan reed war xarunta abwaan faarax shuuriyo waxay qabatay kartatooya waa ridi lahay kicisa baaruuda miyay dhaheen warwarka hayga dhex geline waxay qabatay barnaamij la yidhaahdo aqoon iyo ogaal oo lagu xusay brofesor cumar eenow oo loo yaqaanay aragtiyahankii bulshada dulman waxaana ka soo qayb galay brofesor cali jimcaale axmed brofesor maxamed eenow brofesor cabdi maxamed kuusow brofesor maxamed cumar dalxa iyo brofesor maxamed xaaji ingiriis dhammaantoodna brofesorradaasi waxay isku raaceen brofesor cumar eenow inuu ahaa halyey ka baxay ummadda soomaaliyeed war abwaan bashiir maxamed xilsi xususkan oo ku qabta xarunta abwaan faarax shuuriye yaa uu xil saaray isxilqaanku xor weeye war wasiirkii hore arrimaha dabadda yuusuf garaad xilka loo magacaabay ayaan garan waayey war qowdhinow somalilan waxay tidhi xilka yuusuf garaad loo magacaabay ma aqoonsinin noomana imaan karo marka maxaad ugu hor timideen haddii dee xilkii fahmin war yuusuf garaad waxaa loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u qaabilsan geeska afrika cadan iyo gacanka cadmeed war geeska afrika iyo cadan iyo gacanka cadmeed waa waddankee muxuuse ka qabanayaa war gacanka cadmeed somalilan waa ka mid oo badda cas bay ku taallaa dowladda farmaajona inay aqoonsatay baan u malaynayaa mar hadday ergey u magacowday war waxaan la yaabanahay xilkii cawad ka xishooday waxa yuusuf garaad ku raray waraan waydheega jiray geedka ciyaalhay heesoo ciyaalka ka heesow may leera jiray badda bambasaare baadka beerka taabide badda bambasaare baadka beerka taabide
waryaadheen hadday doorataan anaa biyaha badda macaan u beddelaya anigu ciidamada baddaan dhisaya war aniga haddaad i doorataan qof walba diyaarad buu raacayaa war haddaa aniga ay doorataan baddana maraq baan ka dhigaya buurahana furun been horaanka noogni war aniga haddaa ay doorataan shidaalka badda ku jiraan soo saaraya war waa isku gubaynaaye naga daakaa war aniga hadday doorataan barakacayaasha masaakiintaa baan caawinayaa war anahoo ay doorataan maanyalasinka arurifade war aniga ninkii i doorta hataa waa inkiri doonaa war haddaad i doorataan waa guulaysa laha kalamaanay qaran dumay qalfooftiis intaan hoos qandoodnaa qayrkeenna dhaafee qalad laguma saxo qalad war qalad lagu saxaa waa kii meeshaanna dhigaye welina lagama qoomamayna waa lagu socdaaye raxmadda ilaahaysan lagama quustee maraa laga bixi doonaaye waxaan dhihi lahaa doorashooyin qalloocan haddii loo qalab qaato oo mas-uuliyiin qalqalloocan qarashaad ku baxshaan xildhibaanno qalloocanna iska soo qorqortaan madaxweyne qalloocanna xilka qaad ku dhahaan ilaa waa qasadkiiye qalalaasa dagaal iyo qalad soo dhalin mayso hadday qaab ka ahaato qarankaynu kollayba qalqallooc xuri maayo anina mayba lahaa khaaf rabbak yaaqay war odayaashaanu war ma hayaane doorashadii hore hadday qalloocnayd middaannu waa qabiran tahay war hanuuniye weliba erayhaa dad yow kala wada qoqoban dalkii idinkaa qaribay may baa ka gebagabaayey soomaali qalloocaney ogow quwaddii alloo qaruuma rogtay baa jirtee war waa siduu u sheegaye qalad laguma saxo qalad dadkana kii qab weyn iyo umaqabaha quursadaa isma qaadi karayaan isuqabe aan loo qabinoo isla qaalan baa jira baan maqli jiray aryadhaha aniguna intaas waxaan ku dari lahay how qarribayaal qaalloocanya qarannimaan isqaabehayn qarribayaal qaalloocanya qarannimaan isqaabehayn haye war kalamaanay qarannimada allaha noo toosiye siyaasaddii xaalkeedu meel qaraar buu marayaa aryadhaha wax xaraar lama cabi karee sokoryo malab leesagama daro siyaasadda war garaar markiin sheegna siyaasadda gara isku tuuru walla kaeri war soomaalida ilaa siyaasaddeedu qabowdo qaboobi maayaan war ilaa damaca xildoonku yaraado soomaalidu degi mayso walisingari wal may sheegow lankii wal sheega waliusu sheega barbal sheege lan sheegona may waayo reed intii waa sheego fadhi shib isku haw war talasha waa la ogaa faragelin shisheeye inay meesha ku jirto yaa moog war faragelinta shisheeyaha waxa qaarna loo xaaraameeyey qaarna xalaasha looga dhigay ayaan la yaabay waar faragelin shisheeye horta soomaali huri mayso laakiin way kala daran tahay kuwa albaabada soo garaaca waa la aqbali karaa faragelintooda laakiin kuwa daaqadaha soo garaacaya waa xadgudub iyo qalqallooc faragelintoodii oo lama qaadan karayo war waxaas dawladdeenna xala noo sheeg warnimiya ulitii furun langhung iyoonay lansan baa ku galaayan hoobisun humaaga diidasaanoo samaaga fadaasan irtoogin hirida warmada isaaqow weji furanaa la galaa guri furan lama galo wareedhahay xilligay laydinka kor hadli jiraa malaha la gaaree warka naga suga dawladda soomaaliya waxay tidhi kenya faragelinteedaa nugu badatay lamana aqbali karo doorashada soomaaliyana waxay bilowday inay hor istaagto marka safiirkeedana ha la noqoto keennuna ha yimaado xiriirkeedana waa ka fiirsanaynaa tidhi warnimiya weliba dheegi jiray hujayleeshodiyo koyti haji abdaliga marmarsiyoodase kenya maylanka marmarsiyooda dhatunba hooliyaalle war dawladda kenya waxaa lagu eedeeyey in socodka mucaaradku ku batay madaxweynaha jubbalandna dhegtay wax uu sheegtaa la yidhi war anigu waxaan la yaabanahay dawladda ogol faragelinta etoobiya eleteriya qatar iyo yugandha kenya ma dimuquraadiyadday ku diidaysaa talow war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi siyaasadda dawladda waxaan ku naqiinnay cayayaanka baraha bulshada laakiin hadda waxay la timid diblomaasiyad cayayaanka baraha bulshada ah war cabdiraxmaan cabdishakuur mucaarad qaran dumise oo kenya iyo wax lamida dhigaa wax ugu sheegaan waaye warkiisana lama qaadan karo war inkastoo dawladdu sheegtay in safiirkii soomaaliya u yeeratay kii kenyana meeshaad ka timid u laaba tiri haddana waxaa la ogaaday in labada safiirba dalalkooda kala joogeen marka tarsanoo soomaaliya safiir u ahay subaxyadan muqdisho ku qaxweynayaa la yidhi kenyada looga yeeraayana ma jirin safiirka kenya lukas tumbosna habaariya subuuyo nairobi ku hayay maalmahan tukumaandhoobow nairobi ku cunaaya miyaa tiri oo safiirada midna la ceyriyey midna loo yeedhay xaafadahoodii joogeen miya warnimiyo aan weliba dheega jiray lanyaw isdhumiyey uu idheh marka nabadii noolal isdhumido unun uu ernofado hayta
warshaxda nabad in nolol fahmi maysaane hadalhaynta bulshada ayay maalinba meed ka shidanaysaa hooyadii xerada ilmaheedu uga guureen bal anigu waxbaan dhawri bay tiri yaa caasi inuusan meelsan tegayn miyay islaantu dhawraysaa war ninkii hooyadii ka guuray sodohdiisuma nagaadaa la yidhi warnimayahow xuseen macallin oo alla taliyii hore ee madaxweyne farmaajo dhanka amniga qaranka wuxuu yidhi waxaa socda abaabul cagajuglayn diimaysan iyo dhiigbannaysi siyaasadeed wuxuu yidhi waxaa ii muuqata khatar in la isku dhex milayo siyaasadda doorashada iyo cagajuglayn diimaysan oo looga bartay kooxaha xagjirka ah oo ummadda dhiiggooda bannaysan jiray iyagoo adeegsanaya aayado jeebkooda ah culimmada soomaaliyeed ayaana loo baahan yahu yidhi inay arrintan ka hor tagaan waar wasiirkii hore arrimaha gudaha juxa waxa uu yidhi dowladda soomaaliya iyo al-shabaab waxay iskaga mid yihiin labadaba cid aan la fakerahayn lama noolaan karto aho meeshi laba maroodi ku dirirto cawsaa ku gacan galaa hore loo yidhi arabdulow maaha maahadinku ku dheelo maylaray meeli geelka durdur erin shanshaanka dhamaade war ala kulli xaal waxa hore loo yiri mid bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaydaanba shaydaanka kale waa u shantogayay shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war ma haysan madaxweynaha galmudug nabadoon qoorqoor wuxuu ka dhex shaqeynayaa la yiri madaxda dawladda iyo musharaxiinta mucaaradka ah wuxuuna la shirayaa la yidhi madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha nabad sugidda kadibna wuxuu la shirayaa la yidhi midowga musharaxiinta waxayna ka oggolaadeenaa la yidhi inay la kulmaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo milkiilaha warnimiyow madaxweyne goorgoor hatu hor waliba eray bisad iyo inay jiira meel iska jeeye marka mu'aarad iyo muhaafad hadii isla hadali ay bisad ayna jiire war dadka siyaasadda faagfaaga waxay leeyihiin kulanka labada dhinac ee qorqor ka shaqaynayo wuxuu u baahan yahay in markhaati laga noqdo wuxuu kale u baahan yahay labada dhinac waxay ku wada hadlaan ama isku afgartaan in la caddeeyo oo weliba labada dhinac wixii ay ku heshiiyaan ay si cad u faafiyaan war dadka kale siyaasadda faagfaaga waxay leeyihiin musharaxiinta ayagaa madaxya badan meelo badanna ku kala xihan qaar fahday ku xihan yihiinaa la yidhi qaar farmaajoay ku xihan yihiinaa la yidhi qaar uhuuray ku xihan yihiinaa la yidhi qaar imaaraaday ku xihan yihiinaa la yidhi qaar waa madax bannaan yihiinaa la yidhi dhammaantoodna in kastoy midowga samaysteen isma aaminsanaa la yidhi war faagfaagaad nagu waasheene dadka siyaasadda fiirfiiriyaa waxay leeyihiin dawladda heshiisyada siyaasadeed waxay u isticmaashaa baa layidhi dareenku baktiin midkaanina waa midkii ugu qiimaha badnaayaa layidhi inay fuliso waxa lagu heshiiyana ma doonayso aryadaha waa wareerteena dadka siyaasadda ku riyooda waxay leeyihiin lamada dhinace maanta isku haya siyaasadda Soomaaliya hal qof oo madaxiisu barbar u xiirmo lagama helo war dad kale siyaasadda ku qarwaana waxay sheegeen siyaasadda hadda Soomaaliya ka socota waa waqti lumis war dadka siyaasadda ku qaxweeya waxay leeyihiin maqallatii ku dhacday kismaayana waa sugay war dadka siyaasadda ka dhafarayaan waliba leeyina أبي أحمد تكريك وأتكاد يارين دولة الصومال إنك تاجرتي markuu soo marjay inoo taageero meelka jarta sababtoo ay wali balaaray sahan gud saanga gud war dadka siyaasadda ku saaman Leila waxay leeyihiin madaxweyne Farmaajo 2016 wuxuu ku tartamay Itoobiya nacayb haddana wuxuu ku tartamayaa Kenya nacayb marka waa wadan isbedbedelay dhaheen waaryaadaheen shalay hadduu Itoobiya nacayb ku tartamay maantana uu Kenya nacayb ku tartamayo ilaahowsan Jabuuti nacayb noogu tartami war xanaano anu waxaan ku dhihi lahaa cagta dhig intaan Soomaaliland nacayb lagu tartamin aryadaha dadka siyaasadda ka caaganna waxay leeyihiin labada dhinac muxaafid iyo mucaarad kala ah ilaa shartoodana mood war beesha lixaad waxay dhaheen wadahan lama furayo albaabkaasna waa xiran yahay haddana inayna waalayaan waxay ku sii dareen waxaa qasab ah in doorashada ay ku dhacdo is-ogol isfaham iyo heshiis ليس الخواف بعيدا ما أرعب كوسة وهاكو قلنا عب بعيد خواف سوال اسكا قشاه وين يجري ايه لانكي هذا والك الساقدة وسوق الدلي لانكي هذا والك الساقدة وسوبك الساقة ورلعت قدر الله الشاني ميانا تيري اللو اكل ديرتين هديرنا هنا يسولو هذا المربان وريانتان عبسيدي قدادوين توي بدتاي حقيبا لا يدين كسو غلاي war gadaadwiilo dadka isku dhahrowdo qudbooyinka mu'aaradkii qudbooyinka muhaafadka ma dhageensido ay tamaa warnaba xalaan waxaan saacada anoo shakisan oo cabsanaya waxaan la dhageystay nin kamid ah mas'uuliyiinta gobolka Gado hadlay wuxuuna yiri mu'aaradku waa ridoobeen diintana waa ka baxeen in la laayaano waa banaanta marka waxaan is weydiiyay ma mas'uul dawladeeda
ma amiir shabaab baa ninkaan dhegaysanaya war waxaa aniguna la yaabo ninkaasuu yidhi nimankaas in la dilo inay bannaan tahay waxaa caddeeyey sheekh cumar finish uu yidhi waana aayado qur'aan oo annaga ma dhihin uuna sii raaciyey war fadwooyinka maalmahan socdo waa badan yihiin dadka ka hadlaayana waa qiiraysan yihiin aayado qur'aanna waa soo daliishanayaan marka mas-uulka gada ka hadlayey waxaana isiri makooshin garaana u fadwooday war guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo oo bannaanbax qiiraysan ka hadlayey una jawaabayay musharaxiinta wuxuu yidhi nimanka yidhi ciidanka naga difaacaya kenya ha ka soo baxeen gobolka gedo waxaan leennahay muutuu bikaydikum caradiina ku dhinta aryaadhaha kaas guddoomiye shiikh macallimuu miyaa u fadwooday warna mi oon waybaan maleeyey khudbado muhaafidka beryaawunka dhawaaqahoyo waana aayado hangaadoo haya buuraday toorboora nolaanka gorya ka aale wargadoojo warqadaad weynay meeqa nuuc baa tihiin war waxaa la yidhi ninkii waxaan jacayl waafaqaa heese weligii siyaasadduna markay waalatay diina wadataa aryaadhaha war ma haysiine madaxweyne axmed madoobaa warramay war asna miyuu fadwooday doorashada halla qabta miyuu yidhi seelaare mandhiil gobodaw madaxweyne farmaajo heshiiskii waa ka baxay miyuu yidhi aroor ani 2 sano ma rabee 4 sanaa lee doorti maasiri aryaadhaha warka hayga dhex gelinaya axmed madoobe wuxuu yidhi gobolka gedo jubbalanday ka tirsan tahay jubbalandna anaa madaxweyne ka ah gobolkii gedana jabhadaa iga heesta oo aniga iyo maamulkayguma dhex roogsa karno saa doorasho loo qabahaa haddaan jabhadda qabsato laga bixin warnamiyo anin mayba iswaafajii waayey madawiini ahaa iyo inay jabhada meelo ahaasito oo warka axmed madoobe ah war anna waxaan kala garan waayey ciidanka dawladdu gada geysay ma kiiniyay difaacayaan mise axmed madoobay ka difaacayaan kalmaanay wayba sii sheegay axmed madoobe madii kismaanyo kooy iyo kenyana kooyti war anna waxaan iswaafaji waayey madaxweyne farmaajo soomaaliya o dhan uu madax ka yahay gobolka gada oo ka soo jeedana ma oggolo in cid kala maamusho markii maamul goboleed gaara miyuu rabaa inuu ka dhigo oo gadaland la yidhaah war shiikh madaxweyne axmed madoobe wuxuu hadalkiisa ku soo daray ingilish wuxuuna yidhi maamulka gobolka gedo waraaqahay soo saaran waxaa ugu qoran maamulka gede ee jubbaland madaxda jubbaland xukunka jubbaland marka huwis jubbalanta annaga aan maamuleynay xamar laga maamulo uu yidhi warnamiyo bilaashana nis wereeriya jili lungure maahina alanka koonfur galbeed lihidiga ka taale mayna ka turjumaasa inoo li gobol eeyin armaday gareeno cir weynida ma cagta dhigtid maday haddii warkaas keeno annaga hirshabeellaan banaadir ku darsanaynaa arooda anigu waa wareede arrintan xaggee loo wadaane waar ummaddu way daashaye u daneeya dadkiinna ummaddu way daalan tahay ummaddu way daalan tahay aryaadhaha xaajadii mashaqowdiyo murunkii iyo khilaafkii iyo musharaxiintii cabanaysay maamulkii federaalku bal maxay ka dhaheen taasay guddoomiye sheekh umar finish iyo ka fadwoodi mu'aaradkan wali baaraana mowqifkii federaalku u fadwada sheekha warnimada ayaantaan wararka xanaftali waa soo badanayaan garawshaha iyo tanaasulkuna waa sii yaraanaya wakhtiguna waa isguraya madaxweynihii ugu sarreeyey dalkoo mas-uuliyaddu saarnaydna wuu ka aamusan yahay waxa yeeraya sideedana ilmahan aabba kala celinayni isma nabadgeliyaan marka mid waxaan kula tali lahaa madaxweyne farmaajo midna waxaan kula talinayaa mucaaradka marka madaxweynaha waxaan leeyahay dalkan adigaa u madaxoo mawla kuu xil saaraye maaree dhibaatada maslaxa iyo midnimona ha moogaan mucaaradkana waxaan leeyahay soomaaliya qas iyo qalalaase waa ka soo daashay dagaal iyo dibudhac dambana uma laabto marka madaxweyne haddaad doorasho iyo isbeddel xora ka weydaan adinku tanaasula una dhaafa kursiga intuu ka nacayo maslaxa iyo midnimona ha moogaanina warqadaad weyney garaadka guullaa bixiyee allahaydan garansiiyo war axmed dheere taladiis horta faylata laakiin mucaarad iyoonay muhaafadba lankun kursigaadan dhaafo intu isku noogaw dadkii maalmo tirsadayaan ku weela doonanahe armadeeyow adigoon isdaalin ninkii gal barxada asagow cadid ka rabaahe soomaaliyana qas iyo qalalaasa damba uma dhinna waxaana dhihi lahay qaraxyaa qayladhaaniyo qabyaalaadana qaribe qaraxyaa qayladhaaniyo qabyaalaadana qaribe haye war madawiine sheekh shariif markii usbaydho u seedi mayba la kulmay odayaal dhaqameedka koonfur galbeed odayaalkana wali bayreena sheekh shariif do'aayoonay dardaaran aan dhiibni wali kala ernay madawiine dalkun hal badbaadiyooy mucaarad iyoonay muhaafad bihil wiinha ku fuula madawiine farmaajina la hadalnay
wargadaan dirniya eren waliina ernay madawiine farmaajo sida walmalka maamula dalkun badbaadi madawiine sheekh shariifna musharaxiinta kale wargadaanka dhiibniya eren yoona waliba ernay dalka hal badbaadiyoy war ka badano xanafta leho oo laadakiyawna lamada dhinaba hal isku reebo eren warmadayow odayaasha koonfur galbeed waaba caaqiladii la arki jire warnimayahow geedda soomaali la yidhaa waa kala tagtay waana kala roon tahay in la isku daydaan way fiican tahay oo wanaagga la iska barto somalilan maanta waxaa ka bilaabanaya diiwaangelintii doorashada maanta ka bilaabanayso weliba waxaa la diiwaangelinayaa diiwaangelintii hore kadib dadkii qaangaaray waxaana la siinayaa kaarka codaynta marka anigu waxaan ku talin lahaa si isqaqabsigu u yaraado midnimadiina u soo noqoto muuse bixi in la yidhaha labada dhinacba madaxweyne ka noqo war qarandumisaa tahay markaad muuse bixi madaxweyne ka dhigto madaxweyne farmaajo xaggeed geynaysaa ma astaanta qarankaad meel cidlaa ku luminaysaa waryaa ra'iisul wasaare haddii laga dhiga maxaa ba'ayo naw qoldha iyo xaraday waa intaan sugaynay walla weyney waa garawsho fiicane haddaan kuu soo guuraya midnimaduna waa muqaddas arnimiyow reer awgowdhan malay badda ka jiro hawaajintu mudow nagadeen warwar ma haysiine telefishinka qaranka soomaaliyeed waxa uu sheegay in ciidanka qaranka etoobiya fallaagadii tigree ee caasiyowday inay ka qabsadeen maqalla madaxdii tigreegana guryaha laga baarayo saacada kadibna la soo xiri doono ra'iisul wasaaraha etoobiyana abiy axmed uu ciidamada u horseeday guul warnimiyoon waliba liyaabana tiiviga qaranka soomaaliyeed iyo qaranka Itoobiya ama lis waafajay liska dari aroo maxaad oola yaabay xuseen ceediid hadda karsoo ma dhihin annaga iyo Itoobiya hal dalaan isku noqonaynaa hal baasaboorna waa isla yeelanaynaa hal lacagna waa isla yeelanaynaa jidheeroona dhaxmaraana waa dhisanaynaa marka wakhtigeeda la gaaraan u malaynaa maamul goboleedkii dawladiis dhax ka dambeeyay waay oo isku waala in Tigray oo kala luweela ka faylata warqadaad weynay hadda inigu cusub tahay TV-ga Somaliland luqadda Itoobiya xitaa laga soo daayay macal idaacadayada oo dawaaliba ahmaarigu uga baxa war abasiini baamnu isku nahay tiyaadaraasha geega edaaytay war TV-ga qaranka in Itoobiya laga buunbuuniyo anigu lama yaabanin oo Big Brother Abiy Ahmed ayaa madax ka ah Itoobiya laakiin waxaan la yaabana musharaxiinta Soomaaliyeed iyo madaxweynayaashii hore oo TV-ga aas-aasay in laga mamnuuco warkooda inuu ka baxo waxa kale oo inta ka sii daran qaar dawladda kamida inaan loo ogolayn warkooda inuu ka baxo Cabdi Xaashi kamid yahay laakiin Big Brother Abiy Ahmed khudbadiisu inuu ka baxdo live loo daayo waxba kama qabna annagu horiya way dheegi jiray lambu ku taabjayna ammaan ka taal abwaan tarasho waxa kale la yiri lama iyaa ka dhaxdooda nacbudu yaa ku jirta abwaan gaduudo waliba leeray anaa gadhay anaana gadisday warqadaad weynay war culus baa Somaliland ka soo yeedhay waxaana la yiri musharaxa madaxweynaha Soomaaliya Mustafa Dhuxulow saacado ka hor baa Somaliland lagu xidhay oo jeelka loo taxaabay warqadaad weynow madaxweynahan xirnanama qabato adeer xabsigu linta ku cabaya war Mustafa Dhuxulow intaan la dooran miyuu midnimadii raadiyay war midnimada in la raadiyo intaan madax la noqon ayaa mudan ninkii soo hela ayaana madaxtinimada astaahila war midnimo annaga nalaba maqashiiye ciddii raadinaysana jeelku linta ku cabaya warnimiyow reer awlaan hoosaaska dheegayaana sidii Mansuur Reebo ama leema luweelihe waraana Mustafa Hargeysa waa tagi jir lamana xiri jirine sidee wax u jiraan warwar ma haysiin madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo ayaantan aan khilaafka siyaasadda juuq ka dhihin maanta wafdi ka socda beesha caalamka oo Garowe ku qaabilay waxayna ka wada hadlaynaa la yiri doorashada iyo xaaladeedu halkay marayso war ra'iisul wasaare Roble oo laftirkiisu qurba jooga wuxuu online uga qayb galaa la yiri shirweynaha qurba joogta Soomaaliyeed wuxuuna yiri la yiri qurba joog la'aanteed Soomaaliya ma noolaateen war qurba joog waa nabad iyo nolol miyaa uu yiri aroo qurba joog indhaha u furan qorax joogtan indhaha ka xiriin ma siri war wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan waraysi dheer ayuu bixiyay wuxuuna u waramay ayaan la Xuseen Cabdi sir badanna waa ka shifay wuxuuna sheegay inuu Faad iyo Farmaajo oo la kulmay waa uu fakaday guriga ka booday badda u maray sheeka baraley waa uu yiri war Cabdirashiid Janan ma baxsan ma ka arna laakiin airportka diyaaradku koriya ka eri
hayehe warkii hore war soo dhaaf maahin oo arrintaanu warnimayo 4 sano ee nabadii nolol waddanka ruwaayada cajiibaha ka socda war musalsaladu wili ma dhamaaneen sugu waaytan war wala weyna afkiin iyo dhagihiinu miyaan ismaqal laysa alxubbu ka hada ma ka wadin war arrintaanu yaabay leedahay ilaa beenana lagu ma weeli jiray arooda muranka badan inta iska dhaafteen midnimo allah idin tusaan idin leeyahay xumbaal ma jacbeesa meel kale ka muulaxay jireen beeniraad mal ayaan maqli jiray si hoostaaliya korntaali warqadaad weyne dadkiina u tudha loo turmaayo maykinka jar aro haddana ma dhahayno gooni u goosnaanahay lagaa dabarotiye run iyo been dadka waa loo sheegaa run iyo been war dadkiina u tudha kursigaasan aasaqae madaxweyne koli dhahaye waxaan ahay madaxweynaha dowladda Jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda Galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda Puntland anna waxaan ahay madaxweynaha Hirshabeelle aniguna waxaan ahay madaxweynaha Khaatuma State waxaan ahay madaxweynaha dowladda Banaadir State war ana waliba aha madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ay hayso kore waan ila gobsada kore anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda Everland daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeena